laabtayda ayaa hugmaysa indhahayguna webiyaal biyo ah oo kulul ayay daadinayaan garbasaartii aan keligeed lahaana sidaan ilmada ugu tirayey ayay catir u ekaatay markaan halkaa marayo ayaan eegay dhammaadka warqadda iyo qofka ii soo qoray fanka iyo suugaanta dhegaystayaal waa ayaanba ayaane maantana maan idinku jilbeebiyo dhambaalkii saxarla caamir dhambaal weeye naxdimeed oo ay ii soo dawisay da'yarta soomaalida ee reer miyiga ah gabar ka mid ah gabar weeye ay gamuunada dhibaatooyinku dhinac walba ka asiibeen asii aan aqoon cid gaar ah oo ay gamuunadaas u aanayso dhambaal weeye khaas ah oo aniga oo qura loogu talagalay asii aan goostay inaan dhagaystay adigana kuu soo gudbiyo kolkay ila noqotay inuu ku khuseeyo dhambaal weeye eed sheegad oo la doonayo inaadan dhagaysan oo keliyahe aad wax ka qabato waa cabasho u baahan hiilkayga iyo guud ahaan hiilka bulshadeenna dhambaal weeye ay saxarli soo qalin daraalaysay ha yeeshee ay hablo badan oo la da'ahi la qabaan la murugoonayaan oo la cabanayaan inaan dhibaatada la qaybsanno oo la naxno oo qura miyay tolow saxarli doonaysaa maya waxay doonaysaa wadajir inaan wax kaga qabanno hagardaamada aan iyada oo keliya la soo gudboonaatay boqolaal habla ah oo ay isku gada yihiin xorriyaddii shakhsiga ahayd inta laga qaaday ayaa saxarle loogu adeegtay sidii qalab aan hadlin aan fakarin oo hadba docdii la doono gudaha aqalka laga soo jeediyo waxba yaanan gogoldhigga idinku dheerayne warqaddeedii iyo wixii ku qornaa maan idiin soo gudbiyo iyada iyo kuwa la midka ah ee qalab ahaanta loogu adeegtay aad u hiiliseene erayadeedii naxdinta lahaa maan maqalkiinna ku soo rido waxay saxarli tidhi walaal ku salaami maayo salaan iyo hadal macaan niyad uma hayo laabtayda ayaa hugmaysa indhahayguna webiyaal biyo ah oo kulul ayay daadinayaan garbasaartii aan keligeed lahaana sidaan ilmada ugu tirayey ayay catir u ekaatay markaan halkaa marayo ayaan eegay dhammaadka warqadda iyo qofka ii soo qoray waa saxarla caamir warqaddii ayaan dib ugu noqday xorriyaddu sidaa tidhaahdaan waa wax qaali ah ma aqaan falsafadda mana aqaan siyaasadda laakiin waxaan dareemayaa inay lagama maarmaan tahay qofku inuu aayihiisa ka tashado berigii aan miyiga joogay ee aan tuulooyinka aryaha aroorka a keeni jiray waxaan raadiyaha ka maqli jiray ummad waliba xaqa ka talinta aayaheeda iyada ayaa iska leh lagamana qaadi karo hadda ayaan is idhaahdaa hadday ummaddu tahay qof meel ku soo ururay oo batay sow ma habboona intaan aaya ka tashiga ummadaha lagu adkaysan in midda qof ahaaneed xaqiijinteeda loo howlgalo iga raalli ahaw haddii aan dhex galay arrimo aanan aqoon u lahayn maxaa yeelay waxaa laga yaabaa intaan dareenkayga kuu soo gudbinayo inaan dhex dabaasho arrimo aanan weligeed u dhabagelin waxba yaanan buura jeexine aan qalin aan qaastiistu dhiig tahay kuugu soo gudbiyo guuldarrada ila soo gudboonaatay inaad iga naxdo kuugu sheegi maayee waxaa iiga daran inaad niyad ahaan ila safato laga yaabee wax weyn oo guuldarro lagu magacaabi karo inaysan kula noqon maxaa yeelay dalkeenna maalin kasta ayay tan i haysataa ka dhacdaa soomaalidu waxay tidhaahdaa war la og yahay xiise ma leh laakiin waxaan ogaaday inay tahay mahmaah runta ka fog oo aan kolley xaaladayda lagu dabaqi karin miyaan badiyey haa raalliga ahow mar kale aan hoos u daadego
sanadkii 1962 ayaan ku dhashay miyi ka tirsan bartamaha Soomaaliya. qoys sabool ah oo ari mooyee aan iskin lahayn, beledna aan wax u jirin ayaan ka dhashay. kugu daalin maayo inaan kuu sheego arrimo aad ogsoon tahay oo ah waxa uu qofka da'dayda ahi miyiga ka qabto. curadka qoyska ayaan ku xigay, sidaa darteedna waxaan durba noqday gabar ay hooyadeed ku nasatay oo hawlihii badnaa qaar ka hanatay. mase jiraan waxyaabo sheegid mudan oo aan kaga duwanaa carruurihii badnaa ee aanu casinta ku kulmi jiray amaba aanu ceesha ariga wada keeni jiray. xagaagii 1978 annaga oo degan agagaarka tuulada Jecdheer ayaa waxaa meel noo dhow awrgeeda ah ku soo furtay nin qiyaasta 55 jir ah. inkastoo uu daaqii nagu xiriiriyey fagaagii aryahana naga soo xadeeyey, haddana aabbahay iyo beeshii aanu isku degmada ahayn wax hiif iyo habaar ah uma ay geysan. kadib ayaan ogaaday ninkaas iyo aabbahay inay horay isu yaqiineen oo ay ceelka isku barteen. isla baryahaasba waxaan ariya daaqeenka isku barannay gabar uu ninkaasi dhalay oo aniga aan wax badan iga weynayn. waxay ahayd gabar sheeko fiican oo aan haddiiba jeclaaday. had iyo jeerna aryaha isku meel ayaanu u soofin jiray ilaa uu aabbahay igu canaantay inta aan gabadhaa la sheekaysanayo riyo badani inay abaajiyeen. Canab iyo anigu waxaan jeclayn inay labada reer si joogto ah u wada degaan. maalmaha iyaga ah ma aanu ogeyn guuldarrada ay waayuhu noo kaydinayeen, mana aanu ogeyn inay midiba tan kale reerkooda necbaanta ugu daran necbaan doonto. laakiin aan kuu sii sheegay nacaybka isaga ah labadayada midna ma abuurin. yaa abuuray waad ogaan doontaa. markii uu daaqii sii daba yaraaday ayaa raggii ku tashaday in la rug doorsado oo meel ruumanka la degan yahay ka wanaagsan xoolaha loo raro. aabbahay iyo guutaale waa ninkii nala soo degay ayaa loo doortay inay beesha u sahan tagaan. canab iyo anigu aad baanu ugu faraxnay, maxaa yeelay labada aabbe oo israacay waxaan u qaadannay inaannu wada guuri doonno oo ay sheekadayadii macaanayd noo sii socon doonto. taas iyada ahi way hirgeli lahayd haddii ay wax waliba sida caadiga ah u dhici lahaayeen, laakiin wax waliba si lama filaan ah ayay u dhaceen. siday ila tahay mararka qaarkood tallaabo qurax ayay samaanta iyo xumaantu qofka u jiraan, laakiin garan maayo waxa inta badan tallaabada iyada ah xagga xumaanta loogu qaado. maalinta iyada ah ee aabbaha iyo guutaale beesha u sahan tageen, haddii ay hal tallaabo xagga samaanta u qaadi lahaayeen walaaca aan maanta ku jiro kuma jireen, adigana warqad kuguma wareeriyeen. miyaan badiyey? haa, raalliga noqo oo ii dulqaado. aabbaha iyo guutaale intii ay sii socdeen waxay ka sheekaysanayeen daaqa, biyaha barkaduhu siday u qaaliyoobeen iyo dhulkii kaymaha ahaan jiray nabaad guurka ku dhacay. qorraxdii markay kululaatay oo ay isku afgarteen halka beesha loo soo rari doono ayay geed quraca hoostiis fadhiisteen. cagku geedkaas mar qurax ayay garwaaqsadeen inay sheekadii ka dhammaatay. midkood waliba wuxuu raadiyey mawduuc xiisa leh oo laga hadlo. markaas oo kale waxaa iska caadi ah in cabbaar la nasto oo inta dhacdiid la isu tuuro addimada loo raaxeeyo, laakiin lama yeelin. aamus yar kadib ayaa waxaa mawduucii laga hadli lahaa helay guutaale oo yidhi, caamir, labadeennaba dumarkii naga gaboobe oo intaa oo carruur ah ayay midiba leedahay. dal dambana kuma harin oo ka sugi mayno. kollayba rag waa hawo oo inaan guursannaa waa lama huraane, maxaynu yarad u bixinaynaa? aabbahay oo aan dulucda garan ayaa yidhi, oo walaalow maxaynu yeellaa? wuxuu yidhi,
gabar inan ah ayaa ii joogta, adigana tu la mid ah ayaa kuu joogta. maynu isdhaafsanno halkaana gabdha reerood yaradkooda iyo canaadka waalidkood kaga fursanno. aabbahay oo aan lahayn iskin yarad loo bixiyo, hadduu haysan lahaana inuu bixiyaa ku adkaan lahayd. aad buu bareeraha ugu farxay, isla goobtiina hawraarsan buu ku yidhi caku goobtaas. iyadoo labadayadii sidii laba maro isu dhaafsaday ayay dhinacii reerka u soo carraabeen. wax badan iyagoon geedkii ka soo fogaanna waxay ku heshiiyeen arrintaas inay si degdeg ah laba bari gudahood uga salgaaraan. meel dhexe haddii la soo marayo ayuu guutaale xusuustay tayra dugsiley ah oo wadaad sida wax loo meeriyo yaqaani uu joogo, in yarna u jiray halkii ay marayeen. wuxuu yidhi, caamir, intaynu xilligan jiilaalka ah wakhti ku lumin lahayn wadaad raadin, maynu dugsilayda aan haddaba naga fogayn ku leexanno oo weydiisanno inay labada gabdhood noo kala meheriyaan. aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi, waa yaab, mar walba guutaale ayaa talada keena, mar walbana aabbahay waa ka yeelaa. maxay ku dhacday garan maayo. wadaadkii kolkii loo tegay caku wadaadkee wax waliba siday labada oday ugu talagaleen ayay u dhaceen. waxay saxarle tiri, heshiiskiisii loonaa ee aabbahay iyo guutaale dhex maray macnihiisu muxuu tolow ahaa. waxaa la igu xukumay inaan afadii guutaale noqdo, canabna ay afadii aabbahay noqoto. saaxiib baannu ahayne waxaana lagu xukumay midiba inay tan kale aayo u noqoto. kala fogaa saaxiibnimo iyo aayanimo. dib looma dhigan, wakhtina la iskama lubin. ninba gabadhiisii ayuu fiidnimadii xoolihii oo aan soo xiroon u sheegay. bal malee wixii dhacay. annagoon is ogayn kuna tashan ayaannu bareerahaasi loon ku gacan sayray. ha yeeshee diidmada hablaha yaryari sida la og yahay miyiga caku miyigee qiimo kuma leh. sida uu ridiisa u bixin karo ayuu odayguna gabadhiisa u bixin karaa. wax lala yaabana ma aha. midda kale, gabar kasta oo reer miyi ahi maya ayay tidhaahdaa marka hore oo in nin la siiyey loo sheego, kadibna jajuub dartii way iska yeeshaa. sidaas awgeedna diidmada habeenkaasi labada oday wax dhiilla ah ma gelin. hooyaday iyo canab hooyadeedba markay warkii maqleen ayaa argagax ku dhacay oo masayr ay la madax wareereen. mid waliba ninkeedii ayay wejiga u kaduuday oo haruubkii caanood u dhiibi weyday. beri haddii la joogay ayay aabbahay iyo guutaale guddoonsadeen in labadii dumar ahayd la dhisto oo la aqal geysto. guutaale ayaa ra'yi soo jeediyey oo yidhi, caamir, si aan dadku ugu malayn inaannu gabdhaha isdhaafsannay oo aan naloo caayin, aan midba mar dhisanno, kalana dambaysiinno oo aniga marka hore gabadhaada ii dhis. aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi, waa yaab, mar walba guutaale ayaa talada keena, mar walbana waa ka yeelaa aabbahay. aqalkii la igeyn lahaa ayaa qaybtii labaad aan idiin mariye dareenkiinna daqiiqado iigu deeqa. waxba yaanan gogoldhigga idinku dheerayne warqaddeedii iyo wixii ku qornaa maan idiin soo gudbiyo. iyada iyo kuwa la midka ah ee qalab ahaanta loogu adeegtay aad u hiiliseene erayadeedii naxdinta lahaa maan maqalkiinna ku soo rido. qaybtii labaad aan idiin mariye dareenkiinna daqiiqado iigu deeqa.
waxay saxarle tiri heshiiskiisii loonaa ee aabbahay iyo guutaalo dhex maray macnihiisu muxuu tolow ahaa. waxaa la igu xukumay inaan afadii guutaalo noqdo, canabna ay afadii aabbahay noqoto. saaxiib baannu ahayne waxaana lagu xukumay midiba inay tan kale aaye u noqoto. kala fogaa saaxiibnimo iyo aayanimo. dib looma dhigan, wakhtina la iskama lubin. ninba gabadhiisii ayuu fiidnimadii xoolihii oo aan soo xeroon u sheegay. bal malee wixii dhacay annagoon is ogayn kuna tashan ayaannu bareerahaasi loon ku gacan sayray. ha yeeshee diidmada hablaha yaryari sida la og yahay miyiga caku miyigee qiimo kuma leh. sida uu ridiisa u bixin karo ayuu odayguna gabadhiisa u bixin karaa. wax lala yaabana ma aha. midda kale gabadh kasta oo reer miyi ahi maya ayay tidhaahdaa marka hore oo in nin la siiyey loo sheego, kadibna tajuub dartii way iska yeeshaa. sidaas awgeedna diidmada habeenkaasi labada oday wax dhiilla ah ma gelin. hooyaday iyo canab hooyadeedba markay warkii maqleen ayaa argagax ku dhacay oo masayr ay la madax wareereen. mid waliba ninkeedii ayay wejiga u kaduuday oo haruubkii caanood u dhiibi weyday. beri haddii la joogay ayay aabbahay iyo guutaale guddoonsadeen in labadii dumar ahayd la dhisto oo la aqalgeysto. guutaale ayaa ra'yi soo jeediyey oo yidhi, caamir, si aan dadku ugu malayn inaannu gabdhaha isdhaafsannay oo aan naloo caayin, aan midba mar dhisanno, kalana dambaysiinno oo aniga marka hore gabadhaada ii dhis. aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi. waa yaab mar walba guutaale ayaa talada keena, mar walbana waa ka yeelaa aabbahay. aqalkii la igeyn lahaa ayaa la asaasay oo udubada loo subkay, ardaagiina loo dugsiiyey. farta ayaa la igu fiiqay, laakiin ma rumaysan inay dhab tahay oo anigoo aan oggolayn la idhex jiifin doono. si degdeg ah si uu canab ugu helo wuxuu aabbahay guddoonsaday inuu guutaale degdeg iigu xereeyo. diidmo maxay tari? anigoo afarta adin la isku kaya xiray oo sidii fuusta maran lasii dilandilaynaayo ayaa aqalkii caku aqalkee la igu dhex tuuray. guutaale ayaa soo galay oo isoo dul joogsaday. aabbahay oo inuu imerjin doono ku dhaaranayaana ardaaga ayuu siiqa xanuun badan la fadhiyaa. waxay ahayd markii iigu horraysay oo aan aabbahay necbaado. waxayna ahayd markii iigu horraysay oo aan canab necbaado, maxaa yeelay haddii aysan jirin canab siricaani ima qabsadeen. malaha iyadana waa u dambaysaa ayaan hoos iska idhi. guutaale waa ila hadlaa, laakiin ma maqlayn. waxaan hoos kaga taahayey nabarradii iga soo gaaray jiididdii iyo siiqadii aabbahay oogadayda ku wada calaameeyey. dhowr beri haddaan sidaas ahaa oo xadhiggii i xanuujiyey ayaan codsaday in ikhtiyaarkayga aan guriga ku joogee xadhigga la iga furo. run baa la mooday, waana la iga furay. baf baan idhi oo aqalkii hooyaday gasada u fadhiistay. miskiinad hooyaday way ii soo hiilin lahayd, laakiin islaan reer miyi ahi maxaa tala ah oo ay aayaha carruurteeda ku yeelan kartaa? waa waxba. waan cararay. waa la iga daba yimid iyadoo la rabo in sidaydii hore la igu celiyo, laakiin markaan ma suuro gelin. walaalkay oo cara saabatay ayaa qadwaan la soo booday oo guutaale iyo aabbahay ugu dhaartay haddii aysan faraha iga qaadin inay geesa dhiig leh goobta kala tegi doonaan. dhexdoodii ayay ka willatay. aniguna dhex kubari baan habeenkaa noqday. kala jeclaayaa saddexda murmaysa: guutaale, aabbahay iyo walaalkay. waxba yaanan warkugu daaline maalintii xigtayba waano iyo sasabid ayaa la igu hayay.
waxaan maya ahayn ayaa la iga waayay anigoo murugo ooyaya oo gaajo iyo oon golongolay ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa ii yimid 3 wiil oo isla beesha ka tirsan waxay ii sheegeen inay habboon tahay aniga iyo canabba inaannu israacno oo u cararo magaalada Jeexdheer dabadeedna u tagno garsooraha degmada waxay ahayd markii iigu horeysay oo aan maqlo xeerka qoyska waxyaalihii badnaa ee ay xeerkaasi igu macneeyeen waxaan ka gartay inuu yahay xeer dhigaya inaan gabdhaha lagu qasbi karin nin aysan doonin waxaan markiiba hoos iska weydiiyey su'aasha yaab kale ee ah torow garsooruhu xeerka ah ma maqlay wiilashii ka yeelnay subaxdii dambana annagoo dhuumanayna ayaannu Jeexdheer gallay meel kale annaga oo aan u leexan baahiduna si baas noo gubayso ayaannu xafiiskii garsooraha tallaabada u qaadnay baahida waxaa noo dheerayd cabsi aan ka qabno sidaannu garsooraha ula hadli doonno ma maxkamad baan naqaan ma xafiis baannu camalkii garanaynaa show warqad baa la qortaa ma warqad baannu qori naqaan show arji qoraa loo tagaa ma arji qoraannu naqaan sidaan u sii soconnay ayaannu albaabkii xafiiska soo joogsanay askarigii baana weydiiyey waxaannu doonayno annagoo ilmaynayna ayaannu si tifaftiraan dacwaddayadii ugu sheegnay ma aannu ogayn inaan askarigu shaqo ku lahayn arrintayada laakiin eed kuma aannu lahayn naxariistoon baannu ahayn cidda aan ka helaynase ma aanan garanayn askarigii isaga oo aanna gudbin ayuu garsoorihii u tanaagooday oo ku yidhi sheekh halkan waxaa taagan kuwa la yidhi waa la isdhaafsaday oo ooyay hadalkii uu intaa raaciyey oo badnaa ma maqlayn maxaa yeelay qalbiga iyo indhuhuba way ilmaynayeen canab iyadu waa iga roonayd maxaa yeelay xariggii iyo jajuubkii aan ilaa hadda soo maray lama soo marin wax yar kadib ayuu askarigii qolkii garsooraha noo gudbiyey hadal wuxuu ku bilaabay ilmo ayaa tihiin mid waliba aabbaheed bay sheegtay inaysan tan kale aabbaheed niyad u hayn oo doonayn xaashiyo miiska u saaraa hadduu cabbaar ku mashquulsanaa ayuu intana soo eega yidhi socda reerihii qabta carruur yahay ma idinkaa isu taliya iyadoon midina canaantii ka jawaabin ayuu askarigii soo baxa nagu yidhi bal muu sugo inta uu garsooruhu amarka bixinayo agajiid annagoo ah markaa albaabka ka baxayna ayaannu maqalnay oday meesha fadhiyey oo leh alla maxay dunidii kharribantay bal goormaa la arki jiray habla sidaa u da'yar oo iskood u tashanaya adduunya gadoon canab kama aan warqabin laakiin aniga waxay ila noqotay cid waliba inay naga soo horjeedo dhabtiina way ahayd halkii aan ka soo baxsannay inaan ku noqonno iyo inaannu gaajo habsanno ayaa noo simantay ileen lama huraan waa cawska jiiraale beelbaastii ayaannu u carrownay habeennimadii kolkaan tagnay oo labadayadii midba hooyadeed ku agdhuumo isleedahay ayuu aabbahay si lama filaan ah xerada ariga gadaalkeeda nooga soo horbaxay ma aannu ogayn in maanta oo idil ay labada odayna raadinayaan hul gacanta ugu jirtay ayuu isagoon ila hadlin isaar saaray markay ka jabtayna darbaaxo iyo haraati ayuu dhulka ila dhigay waxay ahayd markii keli ahayd ee aan ka shakiyey inuu dhabtii aabbahay yahay anigoo siriray ayuu xarig 4 adin inta iiga xiray si qaab daran ii jiiday oo aqalkii sidaan jawaan maran ahay igu dhex tuuray wax yar kadib baan indhaha kala qaaday mase guutaale ayaa idul taagay mayrkuu ka soo dhacay wuu hadlay oo daldalmay oo waana igu dhaqaa yaase kow ka odhan haruub caana ah ayuu agtayda soo dhigay oo yaa dhamaya intaan ku gurguurtay haruubkii ayaan gacmaha iga xirxirnaa ku dhuftay say dhulkay ku daateen caanihii oo idil
inta noogu idil barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadnay sheekadii dhambaalkii saxarla qaybteedii labaad. fanka iyo suugaanta. dhegaystayaal, waa ayaanba ayaane maantana maan idinku jalbeebiyo qaybtii saddexaad ee dhambaalkii saxarla caamir. waxay tidhi, maxaa gaajo i haysay? waxaanse islahaa gaajada xorriyaddaada ku iibso. ma hurdaa? laba baal isma saarin. waagu kolkuu bariyey ayaa xariggii la iga furay, kadib markii la istusaaleeyey inaan dadka la mid ahay oo aan u baahnahay kortagga badanaa dadku aroornimada u baahan yahay. intaan luuday ayaan in cabbaar ah aqalladii ka fogaaday oo geed gaaban dugsigii inta kuududsaday ilmada daadiyey. inaan baxsado oo hay cuneene dugaagga isu bandhigo ayaa mar qura igu soo dhacday. maxaa yeelay waxay ila noqotay dugaag aadan aqooni inuu ku cunaa inay ka roon tahay mid aad taqaani inuu ku cuno. sawku lama aha. halkay indhahaygu eegayeen ayaan wejiga saaray. waxaan isku dayey inaan kolna ordo kolna aan socdo, isla markaasna raad gato. muddo aan saacad ku qiyaasay kadib ayaan gadaal milicsaday, mise waa laba nin oo soo laba laxaadsanaya. waan orday, xaggee baan si orod ku gaari. wax yar kadib ba isoo gaaray. xarig buu aabbahay gacmaha ku sitaa. ma awr baxsaday buu ku soo qabanayaa. waxba yaanan war kugu daaline, anigoo xirxiran dhiigguna xubnaha sare ka da'ayo kuwa hoosena ku guntamay ayaa aqalbaaskii la igu soo dhex tuuray. duhurkii maray tahay oo ay ilmo indhihii soo daadin waayeen ayay hooyaday ii soo gashay oo iyadoo iga naxsan igu tidhi, naago'do sidani si ma ahee, waan yeeli iska dheh oo intaad nabarrada ka bogsanaysid aniga ila joog. waan oggolaaday. markiibana xariggii baa la iga furay. ilayn ma ogiye sidaas baa lagu heshiiyey. maalintii saddexaad maalinta saddexaade ayaan haddana cagaha wax ka dayey oo jiicdheer afka saaray. si aan cidina ii arag waxaan ka fogaanayey wadiiqooyinka xoolaha aroorka alla marsiiyo, socotaduna ay ku hirato. ka baqi mayn inaan habaabo, maxaa yeelay tan iyo markaan garaadsaday jiicdheer baan ari u soo aroorinayey oo 4 joo tii aan ka soo aadaba waa tii kale. masaajidkii oo salaaddii duhur laga addimaayo ayaan tuuladii imi. halkee baan aadi? ma maxkamadda? maya. alla ilaahay, waxaan isidhi malaha ciidamada booliska ayaa kaaga roon. xeradoodii ayaan dalaq idhi. askari baa iga hor yimid oo igu yidhi, na adigu maxaad rabtay? waxaan ku idhi, dowladdan dacwo u ahay. aabbahay baa i dilay oo igu qasbaya nin aanan rabin inaan guursado oo u aqalgalo. intaas markaan idhi ayaan wax ku dari waayey. ilmaa iga soo daadatay. wuxuu ahaa inaan dhallinyaro ah oo aad iigu naxariis badnaa. inkastoo markuu gacanta dhinacayga u soo taagay aan booday oo aan mooday inuu bax i leeyahay,
haddana intuu geed weyn hooskiisa ii kaxeeyey oo i fariisiyey ayuu igu yidhi aamus walaal cidina kuma qasbi kartee dadku waa xor qof walibana qofkuu doortuu raaci karaa maxaa kaa oohinaya calankaaga iyo dowladdaada aamin oo qof weyn baa tahay dhibaatooyinka u adkayso mar qura ayaan qaboobay oo ay niyaddii ii degtay gaajadii iyo daalkiina mar keliya ayay i weydaarteen qofka dhibaataysani markuu helo cod naxariis leh oo u hiiliya wuxuu la mid noqdaa qof ay dibnuhu oon la qallaleen oo isagoo dalanbaabi ah galbiya ah ka soo kordhacay inankii askariga ahaa wuxuu igu yidhi isug dabadeedna wuxuu u dhaqaaqay xagga xafiisyada cabbaar hadduu iga maqnaa ayuu igu soo noqday isagoo ay la socdaan laba kale oo ka darajo sarreeyey midkii ugu alifiya badnaa ayaa sidii garsoorihii igu yidhi ina ayaa tahay waan u sheegay dabadeedna afkayga ayaan furtay anigoo hadal boohin iyo calaacal isku daraya indhahooda markaan eegay mid ma ahee labada kale way ii naxayeen inankii markii hore iga hor yimid ayaa yidhi war niman yahow yaabka la arkay raggu dhibaato jecel ah majiicdheer buu gabar ogol ka waayey maxaa ilmaha daba dhigay dood ku saabsan gabdhaha la isa siiyo iyo guurka oo aanan jeclaysan ayaa taa xigtay waxaana soo jeediyey kii ugu alifiya badnaa fadhi meeshaada intuu i yidhi ayuu u dhaqaaqay halkii uu ka yimi labadii kalena way raaceen halkii aniga oo iska yuurura oo ku mashquulsan qiyaasidda go'aanka ka soo bixi doona ayaan eegay iridda weyn ee xerada mise waa belo waxaa ii muuqday nacbiya ah nasiibkaygu gaabiye yaa dandarrada igu xukumay waxaa ii muuqday aabbahay iyo guutaale oo soo gelaya yaa u sheegay inaan xerada booliiska joogo ma garabdaar bay leeyihiin dhowr tallaabo kolkay xafiiskii u jiraan ayuu guutaale xaggaygii soo eegay oo i gartay aabbahay kolkuu u sheegay ayay xaggaygii u soo wada leexdeen markay ii soo dhowaadeen ayaan xaggii xafiiska anigoo ordaya u daba maray dadkii meesha fadhiyey ayaa mar keliya oogsaday oo isoo dhugtay waa kuwan way iga daba yimaadeen anigoo leh ayay soo galeen aabbahay ayaa inta si cara kulul ku jirto ii milicsaday oo qarxaday yidhi taliye gabadhan hala ii xiro hala ii qabto haddii uu sharci jiro waa caasiye hala ii xiro taliyihii ayaa yidhi war aamus waryaa ma adigaa amarna siinaya socda bannaanka u baxa kulligiin badowsana dadkii meesha fadhiyey oo qoslaya iyo taliyihii oo sii hadlaya ayaannu saddexdayadii xafiiskii ka baxnay farxad deg deg ahi iyada oo ay isoo gashay ayaan geedkaygii ku noqday labadooduna waxay fadhiisteen kadinka xafiiska maxaan u farxay waxay ahayd markii iigu horraysay oo aan arko awood aabbahay iyo guutaale u dhiganta amaba ka sarraysa awood u sheegi karta inuu jiro sharci dadka u dhexeeya oo magaalooyinka iyo xafiisyada lagaga dhaqmo taas anoo ku mashquulsan oo u qaatay wax badan bay iyaga ayaamuhu u hileeyeen inay maalintaydii tahay ayaa aabbahay iyo guutaale oo xafiiskii galaya soo baxay wadnaha ayaa xoogii garaacay waxaan mooday inuu sararaha soo jabin doono go'aankii ugu dambeeyey ayaa halkaa lagu gaari doonaa way ii ahaan doontaa ama way u ahaan doontaa laakiin ninkii sidii la ogaa labada nin ula hadlayey inkastuu markii hore inayad jabiyey haddana ma suurowdo inuu iyaga la safto cabbaar haddii gudaha lagu maqnaa ayaa la isla soo baxay taliyihii iyo labadii la iigu dawgalay dibadda ayaa waxaa ku dhex maray hadallo kulkulul taasna waxaan ka ogaaday sidii faraha la isugu taagtaagayey iyo ushii uu aabbahay dhulka kolba ku dhufanayay mar kale ayaa haddana gudaha lagu noqday markii laga soo baxayna geedkan fadhiyey baa la soo abbaaray wadnaha ayaa xoog ii garaacay ilaa aan mooday inuu sararaha soo jabin doono markii la isoo dul joogsaday ayuu taliyihii igu yidhi adeer aabbaha iyo wadaadkaaguba way ii warrameen intaa markuu yidhi ayaa beerka la ii dhaafay rajadii aan qabay bar baa tegey wuu sii waday oo wuxuu yidhi ninna waalidkii looma dhaamo adiguna maanta ma tihid qof weyn oo cidlo lagu sii dayn karo waxaa ka dambeeya inaan maqlo
ama inaan dhagaysto uma aan baahnayn. Wuxuu raaciyey, marka reerkii ku noqo oo gabar baa tahay wixii lagugu taliyo iska yeel. Haddii lagu xumeeyo ama aabba wax kuu dhibo ama wadaadkaagu wax xun kugu sameeyo, aniga ii kaalay, anigaa kaa celinaye. Isla markiiba daldalan baan afka furtay. Wixii aan lahaa ima tirsanayn. Waxaanse ka garanayaa, raaci maayo, anigu ninkaa ma rabo, guur ma rabo, xeerkii qoysku mee, maxaa la ii qasbayaa, haddaad islaan tihiin iska kaydaaya, ma dhulkaanaaga laga waay, iyo hadallo kale oo aan saddexda midna dhegta u dhigin. Markaan soo loodsami waayey oo ay qayladaydii dad badan xagga geedka u soo jiiday, ayuu taliyihii awood isticmaalay oo igu yidhi, ma inaan ku xidhaad rabtaa? Haddii aad raaci weydo gudahan ku dhigayaa. War ii daaya, Soomaali asxaan wax kuma laho aniga aqaan. Inankii markii hore iga hor yimid ee askariga ahaa ayaa yidhi, taliya maynu maxkamadda u gudbinno, iyagaa shaqo ku leh. Taliyihii ayaa inta si quursila ku eega yidhi, waar soco ceelka aad oo shaqadaada qabso, dadka biyaha u qaybi baanu ku niriye, ma nala tali baanu ku niri. Askarigii amarkii la siiyey ayuu fuliyey oo iska tegey, anigoo wejigiisa ka xansanaya inuu sida la ii galayo ka xun yahay. Wuxuu ahaa qofkii keli ahaa markii hooyaday iyo walaalkii laga reebo ee naxariista ii muujiyey. Isagiina ceelkii baa loo diray. Guuldarro weyna yaa i habaaray. dhegaystayaal, barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta intaa ayuu nagu idin yahay. waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybta afraad ee sheekadan dhambaalkii saxarla hadduu eebadno.